balse ninkan qaab fikirkiisii waa isbedelay oo waxa uu go'aansaday wax noloshiisii dambe wax ka bedelay oo saameyn xun ku yeeshay oo markii hore tuuganimo iyo kufsi kaliya ayay ahayde markaan waxa uu ku fikiray inuu dul geysto. haddaba waxa kaa yaabinaya ayaa waxay tahay goorma ayaad isleedahay ninkan waxa uu geystay dilkiisii koowaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawaada asxaabta qaaliga ah Garaase Channel. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu kusoo gaaray muuqaalkan, fadlan channelka subscribe saaro, ambaleelkana furo, like inoo saar, sheertu waa inoo dhiirigelin si aan u helno asxaab sida adiga oo kale u qiimo badan. haddaba mowduucayna aan u gudagalne, kumuu ahaa ninkii nacaybka saa'idka ah u qabay dadka tujaarda ah iyo dumarka. sheekadan ayaa ka dhacday dalka South Korea, gaar ahaan caasimadda dalkaas ee Seoul. haddaba ninkan ficilkan geystay ayaa lagu magacaabaa Jo Young. waxa uu dhashay 18 Abriil 1970. hadda da ahaan waxa uu jiraa 52 sano. haddaba daawade, su-aasha maskaxdaada kusoo degdegaysa ayaa waxa ay tahay, waa maxay sababta ku kaliftay ninkan in uu beegsado ama dilo dadka tujaarta ah ama hantida haysta iyo haweenka? haddaba ninkan waxaa ku kalifay in uu nacaybka intaas leeg u qaado dadka tujaarta ah ayaa keentay in uu ka dhashay qoys aad iyo aad faqiir u ah, noloshu aad ugu adkayd, waxa ayna daris la ahaayeen ama agagaarkooda ku ag noolaa dad tujaar ah. sababta kale ee kaliftay ayaa waxay ahayd, ninkan markii uu aabihiis u dhintay gaajo darteed iyo faqri ayaa wuxuu go'aansaday ama go'aan ku gaaray inuu waxbarashada ku dadaalo si uu beri u noqdo nin wax haysta oo sidii aabihiis oo kale aysan ku dhicin. run ahaantii dadaalkiisii waa ka dhabeeyey oo waxa uu noqday ardayga koowaad ee fasalkiisa dhanka darajada iyo dhanka firfircoonidaba haddii ay noqoto. laakiin nasiib darro, markii uu dhammaystay waxbarashadiisii dugsiga sare ayaa waxa uu awoodi waayey wax ka bixiya heerkiisa koowaad ee jaamacadda, taas oo ku kaliftay inuu nacaybkii hore mid ka daran uu u qaaday dadka hantida haysta ee magaaladiisa kula nool. haddaba ninkan ayaa bilaabay in uu dhaco dadka hantiilayaasha ah guryahooda. gurigii ugu horeeyey ee uu dhaca ka bilaabay waxa uu ahaa guri dad hantiilayaal ah ay lahaayeen oo weliba ay daris ahaayeen. haddaba ninkan ayaa halkaas kasii ambaqaaday falalka dhaca ah ee u geysanayo dadka hantiilayaasha ah. dhowr jeerna uu xabsi ku mutaystay, balse uu ku waantoobi waayey. haddaba waxaan isla arkaynaa ninkan iyo xilliyadii uu faldambiyeedyada kala geystay. ninkan lagu magacaabay Jo ayaa sanadii 1988 fal tuuganimo ah lagu soo qabtay, waana kiisii ugu horreeyey buu ahaa. muddo 2 maalmood ah markii uu u xirnaa waa la iska soo sii daayey, balse halkaasi buu kasii ambaqaaday oo mar kale ayaa isla fal tuuganimo ah lagu soo qabtay sanadii 1991. markaanse waxaa lagu xukumay 10 bilood oo xabsi ah. markii uu soo dhammaystay uu xabsiga ka soo baxay ayuu bishii Juun 23-keedii guursaday gabadh saaxiibtiisa ah oo markaa ninkii waa aqal galay, balse waa meesha uu dumarka nacaybka uga qaaday. malaha waxaaba loo qaatayba in uusan guursan, oo ninkan ayaa guurkii ku xumaaday oo gabadhii uu qabay ay isfahmi waayeen, dabeecado qallafsan oo aysan aqoon uu ula soo baxay, oo waxa uu ku noqday ninkiiba nin kale oo aysan aqoon. reer uu gacan u qaado ayuu gaaray markii ay ismaan dhaafaan. dhanka kale, intii uu reerka yeeshay, meeshii uu falalkii foosha xumaa uu ka waantoobi lahaa oo uu shaqaysan lahaa, ayaa wuxuu halkiisii kasii watay tuuganimadii iyo dhacii, oo isla sanadkii uu guursadayba ayaa fal tuuganimo ah lagu soo qabtay oo waxaa lagu xukumay 8 bilood oo xabsi ah. iyadiina waa uu soo dhammaystay waana ka soo baxay. Oktoobar 26-keedii 1994 xaaskiisii ayaa u dhashay wiil, balse isma dhihin war wiilkaagii u shaqayso oo waxaan faraha ka qaad ee bartiibuu kasii miistay. oo sanadkii 1998 ayaa mar kale lagu soo qabtay tuuganimo, been abuur iyo xatooyadii uu geysanayay oo ku caddaatay, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah. iyadiina waa uu soo dhammaystay. markii uu kasoo baxay meeshii uu ka waantoobi lahaa xabsiga sanadii 2000 ayaa lagu qabtay isaga oo kufsi geysanaya, waxaana lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah. dhanka kale, xaaskiisa markay aragtay ninkan oo marba mar kasii dambeysa kasii daraya, ayaa waxa ay go'aan ku gaartay in ay kala tagaan oo ay iska furto. waxa ayna kala tageen Oktoobar 27-keedii 2000 isagoo xabsiga ku jira, taasoo sii laba jibaartay nacaybkii uu dumarka u sii qabay. haddaba Jo
ayaa soo dhammaystay muddadiisii xabsiga oo waxaa la soo sii daayay Sebteembar 11, 2003. Balse ninkan qaab fikirkiisii waa isbedelay oo waxa uu go'aansaday wax noloshiisii dambe wax ka bedelay oo saameyn xun ku yeeshay. oo markii hore tuuganimo iyo kufsi kaliya ayay ahayde, markaan waxa uu ku fikiray inuu dul geysto. Haddaba waxa kaa yaabinaya ayaa waxay tahay, goorma ayaad isleedahay ninkan waxa uu geystay dilkiisii koowaad? Ninkan waxa uu geystay kaliya markii uu ka joogay xabsiga 13 bari kadib oo uu ka soo baxay xabsiga oo ku beegnay Sebteembar 24, 2003. waxaase kaasii yaabinaya ayaa waxay tahay ninkan qaabka uu dadka u dili jiray iyo dadka uu beegsan jiray. Ninkan ayaa waxa uu beegsan jiray dadka tujaarta ah oo 50 sano kor u dhaafay. Kaliya ninkan ma rabin dhalinta dadkoodu lacagta leeyihiin ee kaliya dadka waaweyn bes ayuu bartilmaameedsanayay iyo dumarka jirkooda ka ganacsada. oo ninkan waa taa horey usoo sheegnayo, waxa uu colaad daran dumarka u qaaday markii isaga iyo xaaskiisii isfahmi waayeen. Haddaba ninkan ayaa waxa uu dadka tujaarta ah u dili jiray si arxan darro ah, isaga oo ugu dhici jiray guryahooda. marka koowaadna toorey surka kaga dhufan jiray, kadib markii uu qofku dhulka ku dhacana tubbe 4 kiilogaraam ah madaxa kala dhici jiray. mid ka mid ah dilalkii uu u geysanayay dadka tujaarta ah ayaa ninkii uu dilayay iska caabinayay uu dhaawac soo gaarsiiyey. kadib Yoo ayaa dhiiggiisa uu dhulka ku daatay, balse Yoo ayaa nin caqli badan ahaa oo si aan dhiiggiisa tixraac loogu soo samayn ayuu gurigii dhanba dab qabadsiiyey. dhanka kale, midda booliiska dambibaarayaasha ahaa aadka uga yaabisay ayaa waxay ahayd in ninkan dadka tujaarta ah marka uu dilo uu hantidooda uusan waxba ka qaadanayn, uu isaga tegayay goobta marka uu falka geysto, taasoo booliiska yaab iyo dhakafaar ku riday. nin dadkii dilay haddana aan hantidooda aan far saarayn. sidoo kale ninkan waxa uu beegsan jiray dumarka jirkooda ka ganacsada oo markii ay ugu timaado guriga oo uu dantiisa ka dhammaysto ayuu 2 cad ka kala dhigi jiray. marka aan ku leeyahay 2 cad buu ka kala dhigayaa, inta uu dilo ayuusan saas uga hari jirinoo dhexda ayuu ka kala jari jiray oo inta jirkooda qaado ku soo aasi jiray buuraha magaalada bannaankeeda ku yaala iyo macbad lagu magacaabo Bungwon, halkaas oo ay booliisku ka soo saareen 11 ruux oo uu halkaas ku aasay. ninku arxan darana. haddaba sababta ninka lagu qabtay waxaa ka dambeysay kadib markii ninkii lahaa meesha dumarka lagu kireeyo uu ka shakiyey dumar badan oo inta la soo wacay ka tagay oo aan dib dambe aan ugu soo noqon. isaga oo shakigii qaba ayaa waxaa soo wacay Yoo oo doonayay gabar kale, balse Yoo nambarka uu ka soo wacay ayaa waxaa iska lahayd gabdhihii uu dilay mid ka mid ah. ninkii mulkiilaha ahaa oo aqoonsaday nambarka laga soo wacay iyo shakigii uu horey u qabay ayaa waxa ay keentay in uu Yoo ku ballamiyo hotel lagu magacaabo Grand Mat, halkaas oo uu ninkii booliiska ka wacay. Yoo ayaa la qabtay 5tii subaxnimo Julaay 15, 2004 goor uu uma dilaayay oo uu aad u xasuuqay. haddaba xiridii Yoo kadib ayaa waxa uu qirtay markii hore in uu 19 qof dilay oo ku beegneyd Julaay 18, 2004. balse maalin kadib ayaa waxa uu qirtay in uu 26 qof dilay oo ahayd Julaay 19, 2004. haddaba ninkan ayaa waraysyadii laga qaadayay waxa uu caddaystay dumarkii uu dilay qaarkood in uu beerkoodii cunay inta uu jarjaray, halka qaarka kalena uu hilibkooda cunay. warninku muxuu ahaa, ma bahalba mise waa insaan? wixiisa arxandaro waa dhaaftay, dugaag caadi ayuuba isku bedelay oo hilibkii bini'aadamka ayuuba quudanayaa. sidoo kale ninkan ayaa warbixinadiisa ku caddeeyey in uu kaga dayan jiray ficiladan in lagu magacaabo Jong Diong oo isagana dilay 9 qof oo tujaar ah intii u dhaxaysay 1999 ilaa 2000. sidoo kale ninkan warbixinadu bixiyey ayuu ku sheegay isaga oo kaamirada hor fadhiya in dumarku aysan noqon dacasad, dadka tujaarta ahna ay gartaan waxa ay sameeyeen. ninkan isaga oo xiran ayuu xitaa u hanjabayay oo waxa uu u qabay nacayb iyo colaad lafaha ka gashay. ninkan ayaa markii maxkamadda la hor keenay oo ay ku caddaadeen dambiyadiisii dhammaantood ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasho Diseembar 13, 2004. ilaa hadda oo aynu joogno 2022 xabsiga ayuu ku jiraa oo waxa uu sugayaa in xukunkiisa lagu fuliyo. haddaba ninkan ayaa sheekadiisa laga sameeyey films badan iyo documentary ay ka samaysay Netflix oo lagu magacaabo The Raincoat Killer. kuwa kalena ee laga sameeyey waxaa ugu caansan Public Enemy, Very Bad Things iyo Normal Life.
daawad adigu maxaad sheekadan ka baratay ama aad ka fahantay. Fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay like inoo saar, sheertaadu waa inoo dhiirigelin. Channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelino.